maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah maadaama aynu u dabaaldegayno qalinjabinta arday heerarka masterka iyo PhD-ga oo wax ku bartay jaamacadda nabadda adduunka ee qaramada midoobay UPS. waxaa intaa dheer maanta oo ah sida la sheegay maalinta waxbarashada adduunka waa fursad ku habboon inaan iftiimino muhiimadda waxbarashada iyo doorka ay ku leedahay horumarka bulshooyinka. marka hore waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo na siiyey fursaddan aan maanta ku wada faraxsannahay qalinjabintiina. waxaan sidoo kale hambalyo iyo bogaadin gaar ah u dirayaa dhammaan ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacaddan. waxaad muujiseen dadaal, dulqaad, halgan iyo hiigsi dheer. waxbarashadu waa udub dhaxaadka horumar kasta ee bulsho iyo qaran. xukuumadda Soomaaliya ee dan qaran waxay u aragtaa oo aqoonsan tahay waxbarashada inay tahay fursad ama furaha nabadda, horumarka iyo xasiloonida dal kasta. dowladdu waxay si adag uga shaqaysay sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen fursado waxbarasho oo tayo leh. waxaa ka mid ah tallaabooyinka waaweyn ee la qaaday in dowladdu ay ku dadaashay inay abuurto iskaashi waxbarasho oo ay la leedahay hay-ado caalami ah si ardayda Soomaaliyeed loogu helo fursado waxbarasho, albaabkana loogu furo waxbarasho sare inay helaan. waxaa la kordhiyey tirada deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah, taas oo horseeday in dhalinyaro badan ay wax ku bartaan jaamacado heer sare ah sida jaamacaddan oo kale UPS ee aan galabta taagannahay. maanta aniga oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran waxaan rabaa inaan halkan kaga dhawaaqo in 60 arday oo Soomaaliyeed ay si bilaash ah uga baran doonaan heerka PhD-ga jaamacadda nabadda adduunka ee UPS. tani waa tallaabo cad oo muujinaysa inay dowladdu ka go'an tahay inay dhisto hogaamiyeyaal aqoon sare leh oo mustaqbalka dalka door weyn ka qaata. 79 arday ee qalin jabisay maanta uma aha oo keliya farxad iyo xaflad, balse waa maalin ay dusha saarteen mas-uuliyad weyn. shahaadada aad qaadanaysaan waa bilow cusub oo ka turjumaya in laydinka sugayo in aad noqotaan hal abuurayaal iyo hogaamiyeyaal horseeda isbeddel togan ee bulshadiinna iyo dalkiinna. maanta oo ah maalinta waxbarashada adduunka waxayna xasuusinaysaa in waxbarashadu tahay xuquuq aasaasi ah oo ay tahay in dhammaan dadka dunidu ay helaan. waa sababta aan ugu dhiirigelinayno in qof waliba uu ka qayb noqdo horumarinta aqoonta, gaar ahaan dhalinyarada, si ay u noqdaan kuwa dhiirigeliya nabadda, horumarka
iyo midnimada dalkeen. waxaan mar kale hambalyo u dirayaa ardayda qalin jabisay, waalidiinta iyo jaamacadda UBS. waxaana ku ammaanayaa dowrkooda muhiimka ah ee ku aadan horumarinta aqoonta, nabadda. waxaana leeyahay annaguna ka xukuumad ahaan waan idin garab taagannahay. waxaan idin rajaynayaa guul, barwaaqo iyo mustaqbal ifaya. si wada jir ah aan u dhisno bulsho aqoon leh, dal barwaaqo ah iyo duni nabad ku wada naalood. waxbarashadu waa furahaasaan sheegnay nolosha oo dhan. haddaan rabno inaan dal nabada oo barwaaqo ah oo mid ah inaan dhisno, waxaa qasaba inaan xoog saarno inaan waxbarasho tayala dhisno. taasaan annaga naga go-an, waana ku dadaalnay, waana ku dadaalaynaa. waxaana dadka Soomaaliyeed markhaati ka yihiin muddadii xukuumaddan joogtay sida ay waxbarashada ay wax uga qabatay qaybaheeda kala duwan. waana sii wadaynaa. haddii 6,000 oo macallin aan ku soo kordhinay macallimiinta Soomaaliyeed ee ilmaha Soomaaliyeed waxbaraysa, haddii ay la digitalize gareeyay wax kasta oo maanta ay guul tahay in waxbarashada oo dhan Soomaaliya, dugsiga hoose, dhexe, sare, ay dadku ayagoo guryahooda jooga iyadoo macallinkii wadata ay la soo degti karaan oo ay wax ka baran karaan, oo aysan u baahnayn xataa inay iskuul tagaan. meel kastoo ayagoo joogay ka baran karaan. runtii dadaalkaas ayaa la sameeyey. waxaa dadaal la sameeyey in arday kasta oo Soomaaliya ka baxay iskuul, meel kastoo adduunka laga soo weydiiyey wasaaradda, hadday shahaadadiisu sax tahay iyo haddayna ahayn, in daqiiqado looga jawaabayo oo loo sheegayo. dadaalkaas intaa leeg ayaa muddadaas kooban ayaa lagu sameeyey. waxaan rajaynayaa hadda inaan usoo jeedsano waxbarashada sare oo hadda aad ogtihiin in ay wasaaraddu ay advertise garaysay oo ay wado sidii loo dhisi lahaa guddigii sare ee waxbarashada oo jaan goyn doona tayada iyo waxqabadka tacliinta sare oo ay jaamacaduhu ugu horeeyaan, manhajkooda iyo dhammaan meelaha laga qiimeeyo jaamacadaha ay ka qiimeyn doonaan. deedna ay noqon doonto haddii alla yidhaahdo wax weyn ku soo kordhiya tayada waxbarashada sare ee dalka. waxaan intaa ku darayaa Soomaaliya maanta ma joogto meeshii ay joogtay xilligii jaamacadda la furay oo 2018. markii ay jaamacadda la furayay, raja kamay qabin inay campus ka raadsadaan meel xaalana ka koraysa. way adkayd inay dhahaan campus aan xalana ahayn ama areadan ahayn ayaan dhul ka rabnaa. ayaga oo weliba jaamacad ah oo ay tahay inay meel walba ka furnaato, oo aan siyaasad shaqo ku lahayn ee ah horumarka bani aadamka. maanta laakiin meel kastoo magaalada ka Muqdisho ka mid ah ayay ka rabaan inay campus laga siiyo ay ka dhistaan. iskamay iman, waxay ku timid in dadka Soomaaliyeed ay wax qabsadeen, in dadka Soomaaliyeed ay si wada jir ah uga shaqeeyeen nabadda. waxaan u hambalyeynayaa ciidamada geesiyaasha ee Soomaaliyeed ee suurto geliyay
inay caasimadu sideen u ekaato iyo in badan oo ka mid ah dalka qaybihiisa oo dhan oo maantadan aan joogno ay u dhimanayaan u dhaawacmayaan waxaan runtii ammaanayaa oo aan u hambalyeynayaa meel kasta oo dalka ka mid ah oo ay geesiyaashaasi cadowga ku baxsanayaan waxaan u hambalyeynayaa kuwa bari ka dagaalamaya oo aan leeyahay waa mahadsantihiin waxaad samaynaysaan waxaad ku jirtaan jihaad ka dhan ah khawaarijta Daesh ee ku dhumaalaysanaysa meelahaas runtii khasaaro wuu dhacaa laakiin waxaan hubaa in intiina dhimatayna aad ku dhimanaysaan xaq idinka oo difaacaya dalkiina intiina dhaawacnaysana aad xaq ku dhaawacanteen waxaanan ilaahay uga baryayaa inta dhimatay inuu shahaadada ugu aqbalo inta dhaawacana ilaahay inuu u boogadhayo kuwa beled xaawo ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintay iyagana sidoo kale ayaan u rajaynayaa kuwa shabeellaha dhexe ee geesiyaasha ah ka xoreeyay meelo badan wixii ku dhintay intii ku dhimatay shahaadada allahu aqbalo inta ku dhaawacantayna allahu boogadhayo geesiyaal baad tihiin meel kastoo joogtaanna dalkiina ayaad bays u tihiin inaad dhistaan iyadoo wax waliba dhismuhu uu ka bilaabanaya nabadgelyada aadna ka xoreyseen haddana aad ka xoreynaysaan meelaha ay ku dhuumalaysanayaan khawaarijtu mar kale waan u hambalyeynayaa jaamacadda waan u hambalyeynayaa Dr. Francisco oo asna daalan annagu maanta jimcay ahayadoo dadku way waan ogahay inaad kulligiin ay Friday waa iska holiday annaga markay noo tahay marka kulli dadku caajis baa ka muuqda mar kale waxaan ardayda kaan iyagu faraxsan yihiin hambalyo ayaan ilaahay waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh